deegaanka Faliidhiyaale ee gobolka Sool waxa ku shiraya inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee ku jira maamulka Puntland waxayna cabasho ka qabaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay ku sheegeen uu hakraday isla markaasina uu ka gaabiyay dagaal ka dhan Soomaaliland 7 cisho oo kaliya ay ka soo wareegtay markii tukaraq ay la wareegtay Soomaaliland markaasi waxa abuurmatay xiisad dagaal oo u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland haddaba shacabka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isla markaasina aragtiyadooda ka dhiibtay aragtida ay ka aaminsan yihiin xildhibaanada iyo wasiirada ku shiraya deegaanka Faliidhiyaale ee gobolka Sool taa kadib aragtidayda haddaan ka dhiibto xildhibaanadan ku shiraya magaalada Faliidhiyaale iyo wasiiradan dhulbahante ee ka soo jeeda deegaanada SSC maanta u shiraya isugu yimi in ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka tashadaan maamulkii ay inta badan wadaagta la lahaayeen ee Puntland oo maanta ay ka soo diga rogtaan oo iyagu oo madax bannaan ay iyagu aragtidooda iyo oraahdooda isku dhaafsadaan anigu aragti ahaan horta awalba anigu horaan u arkay Puntland inaysan dan u wadin dadka deegaanadan ku dhaqan SSC qoliyaha ku shiraya Faliidhiyaale ee deegaanka kan ah ee xildhibaanada u ah Puntland waxaan ka aaminsanahay totally inay khaldan yihiin waxay ku qaldan yihiin dagaal iyo qalaasyo fadqalalo hadeer in la abuuro wax dani kuma jirto dagaalkuna waa mid ay iyagu dantooda ku wataane mid deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ugu heelinayaan ma aha oo mid danooda iyagu ku wataan ama dad kale ay ku maamulayaan ama caasimada kale ugu shaqeynayaan ma aha dan ay dadkeena u wadaan deegaankeena u wadaan ma aha waa dan ay iyagu leeyihiin waxa la muxuu ahaa habar alla baridii mooradeeda ka aragtay marka danooda iyo xildhibaanimadooda garow ay ku difaacanayaan mid ay danahan dadka ka wadaan ama u waxaynayaan ma aha waxaan ku suganahay gobolka Sool haddaan ra'yiga ka dhiibto xildhibaanada iyo wasiirada ku shiraya gobolka meesha Faliidhiyaale horta weligeed waa la shiri jiray oo shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii hore ee la qaban jiray oo haddana intii waqti lagu bixiyo haddana wax harbacad lagu dhisay ahaa marka waxaan leeyahay shirkaas hadduu shir wanaagsan noqdona وما شاء الله وسود ويننا هدو شركة هرنا قلنا تو حاجة تشير أول هرا الله برتو عادة هيدا لشركة أنتم مال السجيمين دللا بحكي لكن حرنا لها وحكى صارت المسير كضدك يضلك waxaan u arkaa inuu dagaalkaasi Puntland iyo Somaliland ciidanka Puntland deyn badan baa la sheegay dagaal bay soo qaadayaan iyo halka waxba ka dhacay iyo marka dadka reer Laascaanood waxay dhacaan markaad wareysatay halka qorraxda baa ka soo baxda marka ciidanka Puntland hadii aysan dagaalka soo qaadayn waxa weeye deena iska daayaan ma anu fili karaa ciidanka Somaliland waxa leeyahay meesha dhibaatadii hore u geysteen iskaga baxday deegaanka leedin kamar idinku waa ogtihiin dad lama khasbee ciyaalkooda biilkooda ha raadsadeen si waana ha u raadsadeen cidna anaga yeena nagu dirin cidna yeena xabad gelin waxa weeye 10 sano ku dhowdhoway hadda been noo sheegayo ay lahaayeen maalin kasta halkan aan imanaynaa iyo 70 gaari baa halkan taagan waxaas waa been dumarkii ciyaalka loogu sheekeynayaa iyaguna waxa soo dhow xilligii koorankii dawladda Cabdiweli Cali Gaas maamulkiisa uu dhamaan lahaa waxa la rabaa wixii ma garanaysaa campaign-ka lagu gali lahaa inta Cabdiweli Cali Gaas waana lahaa markii uu imanayay magaalada Laascaanood baan qabsanayaa iyo Sool Sanaag iyo Cayn baan xoreynaya Xamse Raadeeye Universal TV Laascaanood